السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتها وأنا محمد سومالي يوتيوب كداون السلام وقياس تي في فضلا عندك وعسوت يوتيوب شبكة سبسكرايب صار فيديو قناة لايك عليه هذه أدوات ما أصلت ورال سؤال ويدين دونا تذكر رقم مقالة الهرقسة سدي نوع على هين المركان إن شاء الله يسرس مركو ركستر هذا قياس تي في أديكو بالعربية مقعاقة بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا قياس تي في waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام بنادر كلنا إن هذا أدين كسر وأنو جديدنا محاد كله هاي حرتان كا سمفرة عبد الملك مسعودون والله عبد الملك مسعودون أرنبو مقرنة ساكها الله صح هكها اللي تهدو قلة أركي يعني مركان أنا يعني دقيقة واحد شريعة كقبته ضد مسلم ما ينونهاي هذيات marka hore markaad yaani doonayso inaad xumaan suuliso waa inaad marka hore dadka ehelka u ah ee xukunka wadanka haya ee maamulka wax laga weydiiyo waa inaad waxan qaladka aad aragtay aad u badhigtaa هذيات waad tiraahdaa waxa saa qaldan oo aan halka ku arkay bal haleele eego hadii marka uu jawaab ku waafiye ka waayo ayaa fiicnayd inuu marka ka bacdi bulshada u soo bandhigo oo yiraahdo arinta maamulkii waan u bandhigay waxaa jirta halka waxaa ka jira marka waxaan arkaa yaani marka arinkaas eeldoon inuu ku yara degdegay oo marka hore aanu xukuumadii kala tashan oo aanu waxba ka weydiin dabeedna bulshadii oo bandhigay bulshadiina maxay marka ka yimid reaction waxa ka yimid ah in ay fadeexad meeshii ka dhalato dib meesha waxa dhigta waa haweeye waa caarkeeni waa ardadeeni waa yaani hadalladan marka eeldoon sheegayna caalamka oo dhan bay gaadho ay ku faaftay wadankay fadeexad ku tahay qarankeena fadeexad ku tahay marka Malik Muuse Eeldoon arinta uu ku degdegay ayaan anigu aaminsanahay arrinka marka ra'yahan saasaad leedahay aad iyo aad badan mudan walaal marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabaya magacaaga aad iyo aad waan ugu dhaw magacayga Farxaan Cabdi Axmed فرحان سؤال بنكويدين دونا ورا سؤال شو حكوران سامحات كقبتها سمفل عبد الملك مسعودون حرقيسة بسم الله الرحمن الرحيم horta anu waxaan ka qabaa xariga Coldoon inuu yahay xarig sharci darro ah oo baal marsan maxay heeto sharciga waxa weeye wax xaqiiqo oo ku salaysan oo maxay heetoy jira oo macquul ah ayuu tusay oo fact iyo fadhisa oo waxa weeye markii la yiri abaarso farbay ku godan oo maxay heetoy sidoo kale maxay heetoy meeshan la leeyahay barwaaqo oo presidentkeedu uu horeeyay uu yahay qof kristaana oo maxay heetoy inagoo waddan muslim ku nool ay saatahay waxa uu ka hadlay waa wax xaq ah waxaan leeyahay maxay heetoy ninkaas ugu sharci badan lagu soo daayo saddex badan lagu soo daayaan leeyahay aad iyo aad maasantahay walaal marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabaya magacaaga waan dhaw walaal Cabdi Xakiin Maxamed Cabdi walaal Cabdi Xakiin waxaan ku weydiinaa maxaad ka qabtaa xariga Samafale Cabdi Malik Muscudon walaal waxaan ka qabaa baadiriyada joogtay iskuulkan muxuu ahaayay iskuulkan imika laga dhisay abaarsa baadiriyada joogtay waxaan leeyahay wadanka laga qabto iyo ninkii kale maamulaha ay la socon jireen magaciisa muxuu ahaa maxay nijaas baa magaciisa sax aad ninkaasi iyadaba halaga mustaafiyaan leeyahay wadanka ninkaana si degdega ha loo soo daayo aad iyo aad walaal marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabaya magacaaga aan ku dhawahay walaal magacaygu waa injineer Xaaji marka aad baad maasantahay injineer walaal waxaan ku weydiinaa maxaad ka qabtaa xariga Samafal Cabdi Malik Muscudon horta xariga Samafal Cabdi Malik Muscudon kulay aad baan uga xumahay laakiin Cabdi Malik kulay isaga xarigiisa markan hoos u eego kulay Cabdi Malik uu degdegay isaga laftiisa degdeg baa ku jiray waxyaalo fara badan information soo dhigay uu degdegay laakiin waxaan leeyahay Cabdi Malik xaq buu ku hadlay xukuumadda Soomaaliya waxaan ugu baaqay Cabdi Malik xorriyadiisa degdeg loogu soo celiyo dalkana dawladda deena jilicsan tahay uu sheego aan dalka hogaanka dalku uu jilicsan yahay xaqiiqi buu ka hadlo dalku inaan hogaankiisa aanu fiicnayn buu sheegay marka waxaan leeyahay si degdeg ah loo sii daayo dalkana hogaan fiican ayuu u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay hoos loo eego in sharciga kor loo qaado u baahan yahay dhaliilo fara badan baa jira dhaliilaha hoos loo eego aad iyo aad maasan marka hore ku soo dhaw walaal qiyaas TV
TV adigoo ku bilaabaya magacaaga magacayga waxaa la Suldaan Saciid Cabdi Jaamac Suldaan ma sha Allah waxaan ku leenahay Suldaan sideed u aragtaa xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xariga samafalaha Cabdimaalik waxaan u arkaa waxa xaqaynu ku hadlay sax marka waxa leedahay xaq buu ka hadlay isagu xaq buu ka hadlay marka waxa weeyaan arrimaha uu ka hadlayna waxa weeyaan social media wada arkay wixii ka dhacay wada arkay arrimaha noocaas marka laga hadlana waxa weeyaan in la baaro ay xaqay la baaro oo dawladdu baadho oo cid loo diraayo ay xaqada ma hadda dadka in la afduubo qofka in magaalada rayigiisa lagu xirana ma aha arrimaha uu ka hadlay arrimo kala gelin arrimo kala dambiya hadaan u gelin arrimaha uu ka hadlay naagta kristanka ahayd waxa weeye xaq uga hadlay marka hore ku soo dhawaadeer qiyaas TV adigoo ku bilaabaya magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacayga waxa la yiraahdaa aadan cabdi aadanow maxaad ka leedahay xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon bismillaahir rahmaanir rahiim horta sideedaba xarigu qofka bini'aadmiga waa la xidhi karaa qofka uu dambi galo laakiin waxa xun qofka haduuna dambi gelin in la xidho laakiin anu Muuse ninkaani oo hadalkiisa muddo dheer waan maqli jiray waqtiga kamid oo xamar tago madaxweynaha Soomaaliya isku soo sawireen waan arki jiray ilaahay barno jeclaan u aragtaa horta dadka shakhsi ahaan uga soo horjeedaan kamid ahay sababtu maxay tahay waxaan u arkaa shakhsi dalkiisa ku filaan waayay gacan bini'aadmiyo ummada sheena u shaqeeya ayaabaan u arkaa laakiin isagoo sidaas haddana wixii uu xaq iyo xuquuq dalka ugu leeyahay in lagu gafo aanu raali kamay haddii xariga la xidhay uu sharci yahayna waa sax baan leeyahay dawladdan ku taageersanay haddii sifaha iyo aragtiyaha lagu xidhay ay mid khayra sharci oo sharciga ka fogay tahayna isagaan la safano waxaan leeyahay wixii khayra sharci ummadda ma qabto saas ra'yigaaga waa intaa walaal marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabaya magacaygu waa Sidaam Cabdi Ismaaciil wandhowaay walaal Sidaam aad baad u mahadsantahay Sidaam waxaan ku leenahay walaal maxaad ka leedahay xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon horta walaal wax kastoo ma garanaysaa xumaana oo wadankeena kusoo faafayay horta in la sida raacma xagga xumaanta oo ninka inta la xidho la yiraahdo wax xumaan buu sameeyay laakiin waa in isla garab dhigo la eego marka la eego wixii ka soo baxay jitada لو قنعت هذه صحسين دي iska qabto waxa xumaanta haduu ku qaldayna de qaladkiisa la mariyo laakiin raayahan saasaad leedahay qalad ma arkin marka hore walaal ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabay magacaaga Cabdirasaaq maxaad ka leedahay xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xarigiisa maxaad ka leedahay raayahan maxaad ka dhiibay waxaan ka leenahay dalka dimuqraadiyadda hal wada gaarsiyo qolada garxajisay qaylinaysan iyaga hal la gaarsiyo marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabay magacaaga barshoonaagsa magacaygu waa Ridwaan waxaan ku leeyahay walaal xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon maxaad ka leedahay raayahan maxaad ka dhiibaysaa kulli daan raayahantii hadaan ka dhiibo fikir khaldan baa aaminsan sax marka isaga khaldan aaminsan kulli isaga ma aaminsan isaga fikir khaldan buu aaminsan raayahan saasan aad iyo aad marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu horta waa Cabdiwahaab Maxamed Xuseen Cabdiwahaab wala waxaan ku weydiinayaa sidaad u aragtaa xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon horta xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan u arkaa inuu yahay xaq darro sababtoo ah waa nin horta diinta uga gaaray samafalaha sax marka aanu madaxweynuhu baan ka fariin uga diri lahayn waxaan leeyahay cadaalad darrada un bal wada deeqsiyana mid ku filnaanay wada deeqsiyo ma leeyana mid kaliya ku filnaanay wada deeqsiyo ma leeyin culimada la xidho sharciga banaynaya weelkii u yaala sharcigu ma isagu samaystay baa mise sharci ay ummadda loo wada gash ummadda lama wada ogole lamana wada ogolin taasaan leeyahay aad iyo aad wala marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabay magacaaga Bashiir marka hore ku dhawaado Bashiir aad iyo aad baad u mahadsantahay Bashiir waxaan ku weydiinayaa su'aalaha sideed u aragtaa xariga samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xarig khalad oo cadaalad darro ma arkaa sax marka raayahan maxaad ka soo jeedinaysaa xagga soo jeedinaya xukuumadda sii deyso si degdeg u sii deyso inay ninka sii daayaan raayahan saasaad leedahay aad iyo aad baad u mahadsantahay wala marka hore ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabay magacaaga sida xagan ma xagan marka hore walaal ku soo dhaw qiyaas TV adigoo ku bilaabay magacaaga walaal magacaygu waa Nasruddin Cabdi Xirsi qiyaas TV inuu ku soo dhaweey aad iyo aad walaal Nasruddin waxaan ku weydiinayaa su'aala sideed u aragtaa xariga
samafal cabdimaalig muuse coldoon niyoon waxaan u arkaa xaqdarro runtii oo rata badheedh ah oo gabasho lahayn oo dee marka xaquuqdirarka haddii laga xidho halkii aadan siree maalinta berigii lixda kadib buuri ayay laba isu dhex qabteen lagu qabtay suuqa isuuri waxay wadaba dawladda musubixi saraakiisheeda wataa la isu qabtay marka waxay wadaba waa la isku guraya sagbada hal xamiil marka dawladda musubixina insha Allah go'aan degdeg ka soo gaari doonta khayr iyo rajaan waa soo rajeynaya dhamaantood aad iyo aad walaal maasad wala marka hore ku soo dhaw qiyaastii fi adigoo ku bilaabay magacaaga oo ku dhawahay magacayga waa Khalid Sigri Xaaji walaalkay Khalid aad iyo aad maasantay wala Khalid waxaan ku weydiinayaa su'aal sidoo aragtaa xariga cabdimaalig muuse coldoon wallahi aad iyo aad baa ugu xumay walaalkay marka naagtan dhal qabtan lay way baxsataa wala lahaabe ya arrinta ay marka sida ra'yaasa aad iyo aad marka hore walaal ku soo dhaw qiyaastii adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Abdullaah Cabdirasaaq waxaan ku weydiinayaa su'aal sidoo aragtaa xariga samafal cabdimaalig muuse coldoon xariga cabdimaalig muuse coldoon waxaan arkaa walaalo raygigu waxa weeyaan in lagu khaldamay ninka la iska soo daayaan leeyahay in samafalaab ahay marka wadan dimuqraadiya magaraasa marka wuxuu arkiyay dhalin uu sheegay la iska soo daayaan leeyahay iska soo daayo aad iyo aad walaal maasad musabixina waxaan leeyahay iska soo daayina madaxweynaha aad iyo aad maasad wala marka hore ku soo dhaw qiyaastii adigoo ku bilaabay magacaaga walaal waan dhawahay magacaygu waa Hooday Axmed Cali Hooday waxa ku leeyahay sidoo aragtaa xariga cabdimaalig muuse coldoon horta walaal madaxweynuhu dadka iska ma xidhada wuxuu arkaa wuxuu xidhaa qofkii uu xarigiisa meel u meeleeyo ama ma arkaa inuu madaxweynuhu iska xidhay laakiin waxaan arkaa ninkan inuu dambi aan la ogeyn galay oo laakiin marxaati looga dhigayo diintu hagaajinaya diinta hagaajinaya ma sheekh dirro midhan la xidhay la culimo joogta magaalada aad iyo aad marka fikir ahaan saasad qabtaa saasaan qabaa wala marka hore ku soo dhaw qiyaastii adigoo ku bilaabay magacaaga waan ku dhawahay Bashiir Axmed Xuseen balariyaa Bashiiro maxaad ka leedahay xariga samafal cabdimaalig muuse coldoon warniyo waxaan hore lahaa cabdimaalig waa tii bardhowd la soo daayay magaraansa tii macbil buu noqday wax wixii satraawix wey sax kowde wuxuu isleeyahay malaha dawladda xariga iyo magaraansa waxa la xirayo aad ku soo shacbaxdi marka fikir ahaan saasad qabtaa anu saasan qabaha aad iyo aad waa samafalay maxaabadaha galiyay dawladii waxaan uu ka shakeeyo waa noocma لا يعني فكركان waa sidaan waa fikirkiga noocaas aad iyo aad maasad wala marka hore ku soo dhaw qiyaastii adigoo ku bilaabay magacaaga walaal waan dhawahay magacayguna waa Aadan Jaacan Faarax aadana walaal maxaad ka leedahay xariga samafal cabdimaalig muuse coldoon ninka samafalaha cabdimaalig waxaan leeyahay ninka wallahi aad iyo aad baan uga xunay xarigiisa sababtoo ah ninkaas waxa nin samafalaha dadka jilicsan iyo dacwadda run ahaantii qayb li wax ka qaatay aad iyo aadna waan uga xunay xarigiisa waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Muuse Biixi Mudane si degdeg ah inaad ninka u soo dayso maxaa yeelay dalka iyo diinta banin run ahaantii isbarbar taagay iyo ahaa horumarka ka qayb qaadan kara ayaan filaynaa horumar weyn ka qayb qaadan kara run ahaantii wax kasta ay Soomaaliland horumarkeeda iyo amnigeeda iyo Allahumma salli ala Muhammad wax kasta ay dan ugu jirto maan saasad marka fikir ahaan soo xaasasan aad iyo aad ku dar laanta gabadhi baatiriyada hayde ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ku soo iyo cid kasto marka diinta iyo dalka Soomaaliland lidku ah in ilaahay ka qabto aanu aamin ba ku leeyahay aamin hore ku soo dhaw qiyaastii adigoo ku bilaabay magacaaga wala magacaygu waa Maxamed Abdullaah oo ku magac dheer Buni General aad baan mahadsantihiin adigu bixin aad iyo aad maasanta wala waxaan ku weydiinayaa sidoo aragtaa xariga samafal cabdimaalig muuse coldoon samafale waxa leeyahay xariga ay kula kacdayeen dawladdu way ku deedegtay run ahaantii sax go'aamintii aan fikirka ahaantii waxay la tahay horta in maxaan ku raday baadhis marka hore la sameeyo sax oo la ogaado wixii halkii ka jirto dhibta halkii ka jirto in la ogaado sax ninkaas oo nin la wada ogsoyo nin inta badan diinta in badan ku jiro wax ogaala sax wax ogaala sax marka aan fikir ahaanteeda waxay la tahay in dawladdu ay ka fiirsato xariga kala kacday coldoon si degdeg ah ay u soo deyso aad iyo aad maasanta walaal asxaabta qaaliga waan soo weydiinay su'aali waan la soo dhaxmarnay dadkuna waxay soo jeedeen fikiro iyo aaraa kala duwan saas soo daawatay fiidiyogan aad iyo aad maadsantahay daawashada fiidiyoga share garee like garee channelkan aad ku cusubtay subscribe noo saar waxaan leenahay isla socod wanaagsan aad iyo aad